waxaa laga yaabaa inaad aragtay robot oo aan derbi ku dhacaynin mase marka wax la hordhiga ka leexanaya. Waxaa kaloo laga yaabaa inaad aragtay huufarada oo robotka ah oo guriga ku huufareynaya oo markay wax u soo dhow yihiinba ka leexanaya. laakiinse weli ma isweydiisay sida ay u ogaanayaan shayga ka horeeya inta uu jiro. Sii fiirsi videogan haddaad rabtid inaad ogaatid. waxaan fiirinaynaa su'aalaha aan u baahannahay inaan ka jawaabno si aan u fahanno sida aan ultrasonic ugu cabirayno fogaanshaha. Su'aasha koowaad waxa waaye maxaa waaye ultrasonic? Ultrasonic see loogu cabiraa fogaanshaha? hardware-ka aan u baahannahay maxaa waaye? su'aasha ugu dambeysana waxa waaye cabirkan aan cabirayno kaba soo qaad waxbaan cabirnay wuxuu nagu yiraahday waa intaasoo sentimitir. see baan u kordhin karnaa kalsoonidaan ku qabno numberkaas? waxa si aad cabirkiisa aad u isticmaashid waa inaad dhihi kartaa waxaan waa wax la hubo. su'aasha koowaad haddaan ka bilowno dhawaaqa bini'aadanka dhagihiisu maqlo wuxuu ka bilowdaa frequency-ga haddaan fiirino 20 hertz ilaa 20 kilohertz. waxa waaye waa codka aan maqalno. 20 hertz wixii ka hooseeyana waxa waaye gariir wax ma ahan aan maqli karno laakiin waxa jirkeenu dareemi karo. marka frequency-ga 20 kilohertz wixii ka sarreeya waxaa la yiraahdaa ultrasound. ultrasound-ku marka waxaa maqla xayawaanada maqla. xayawaano gobolkoodna way isticmaalaan sida eeyaha camal hadda way maqlaan. ciyaanada gobolkood way maqlaan wayna sameeyaan. waxaa ka mid ah anyaxa iyo doorshaanka. haddii aan fiirino xayawaankan la hayo bidmareen la dhaha u malaynaya. xayawaankani indha ma leh marka wuxuu sameynaya waxa waaye dhawaaqaas ultrasonic ayuu dirayaa. markuu diro codka soo noqda ayuu dhageysanayaa. marka codka soo noqda ayuu wuxuu ka sameynayaa sawir maskaxdiisa wax walba inta u jiraan. waxaa kaloo ka mid ah dolphin-ka asaguna wuu maqlaa codka. marka sida wuxuu u shaqeynayna waxa waaye samecad ayaa waxaa ku sameynaysaa dhawaaqan ultrasonic-ga 20 kilohertz wax ka sarreeya. marka dhawaaqii meel buu ku dhacaya kadib wuu soo noqonayaa. marka waxaad sameynaysaa waxa waaye dhawaaqan intuu qaadanayo ayaa waxaad ka samaysanaysaa sawir mase waxaad baa ku xisaabsanaysaa. hadda camal haddaan fiirino ultrasonic waxa la dhahayo waxaa loo isticmaalaa medical sida hadda meeshan camal aad ujeedin uur hooyo oo baby ku jiro. marka waxaa samecad baa la sameeyey iyo microphone was gees yaalin. marka dhawaaqii samecadu diraysay ayaa waxay ku dhacaysaa meelay ku dhacaysaa. meesha ku dhacdo wixii soo noqday sawir buu ka sameynayaa waxii oo meelaha mugdiga ujeedin wax dhawaaqan soo noqon. marka taasi wuxuu ahaa ultrasonic. macnaheedu waxa waaye haddii aan soo koobo ultrasonic waa dhawaaq dhagaheenu aysan maqli karin oo frequency-giisu ka sarreeyo 20 kilohertz. marka samecad baa haysataa oo dhawaaqaad ku diraysid iyo microphone ku dhageysanaysid. marka haddaan hore u socono annaga module-kan isticmaalayno kan waaye waxaa la yiraahdaa HC-SR04. wuxuu ka kooban yahay samecad iyo microphone. waxa waaye midna waxa waaye dhawaaqii buu sameynayaa midna dhawaaqii buu u dhageysanayaa. marka waxaa sameynaa waxa waaye halkan sawirku waa iga halaabay laakiinse waxaa ku sawirnaa marka waxaan dhahaynaa kaba soo qaad meeshan baa taagan tahay kana ku yaala. kani wuxuu sameynayaa dhawaaqii buu dirayaa. dhawaaqii markuu diro meel buu ku dhacayaa. markuu meesha ku dhaco wuu soo noqonayaa. dhawaaqa soo noqday waxaa dhageysanaya kan. kani wuxuu sameynaa waxa waaye marka dhawaaqii markuu dhageysto dhawaaqu halkan ka tegay oo halkan ku dhacay waxa u dhaxeeya ogaansho oo aan u bixinay distance. marka haddaan kow ka bilowno horta xawaaraha dhawaaqa markii biriga la joogo badana lala siman yahay irid ahaan xawliga dhawaaqu mase codku waaye 342 mitir sekinkii. marka si kale haddaan u sheego waxa waaye codku haddii soo qaad qofku cod yeeriyo 342 mitir ayuu sekinkiiba ku gaarayaa. marka waxaan isticmaali karnaa constant-kan oo velocity-ga mase speed of sound ayaan isticmaalaynaa. marka waxaan sameynaa waxa waaye waqtigii uu qaatay codku intuu uga tago microphone-ka uu ku soo noqonayay haddana ku soo dhacayay samecadda. waqtigaas haddaan naqaano sidaan u xisaabsan karno fogaanshaha wuxuu noo jiraan waxa waaye dhawaaqa xawligiisa iyo waqtigii uu nagu qaadatay inuu signalku noogu soo noqdo. labadaas markaan isku dhifano waxaan helaynaa fogaanshaha waxa noo jireen. laakiinse xasuuso dhawaaqu wuxuu ka tegayaa samecadda ayuu ka tegayaa meeluu ku dhacayaa haddana wuu soo noqonayaa. marka macnaheedu waxa waaye fogaanshihii 2 jeer baan aan xisaabinay. marka sidii hal u reebano labaan u qaybinaynaa. marka xisaabtan waaye xisaabtan isticmaalayno. marka see loo isticmaalaa ultrasonic? see baa wax loogu cabiraa ultrasonic? sida wax loogu cabiro waxa waaye horta ultrasonic module-kan wuxuu leeyahay 4 pin uu leeyahay. pinka koowaad waa supply kan ugu dambeeyana waxa waaye ground. wuxuu leeyahay labadan signalkan trigger la dhahayo waa kan waxa hadda inuu cabiray kan u sheegaya waaye. signalkaasina waa mid anagu aan ka soo dirayno waxa aan wax ku xukumayno hadduu Arduino yahay mase microcontroller kale yahay. waxaan sameynaa pulse oo ah 10 microsecond. pulse-kaas 10 microsecond markaan sameyno module-kan gudihiisu wuxuu sameynayaa wuxuu dirayaa dhawaaq oo frequency-giisu uu yahay ku dhawaad
40 kilohertz 8 xaba ayuu pulsations diraya markuu diro bas uu daminaya inta ku xigta marka wuxuu sameeyaa isla markaas pinka echo la dhahayo korba u qaadaya markuu codkii soo noqdo uu ku dhaco ayuu daminaya balacan echo pinka ah oo aan ku cabirayno Arduino-ga wuxuu sheegayaa waqti intii qaadatay inta codka soo noqonayay marka waqtigan waa kii waxa hadda ay sheegayay intii qaadanaysay balaca marka pulse-kan ayaa waqtiga noo sheegaya markaasaan isticmaalaynaa haddii aan fiirno maxaa way hardware loo baahan yahay horta waxaan u baahanahay screen si aan aragno inta wax noo jiraan waxaan haystaa display-gan aan haystaa oo la dhahayo OLED display organic LED iyo Arduino aan ku xisaabsan karo distance-ka inta wax noo jiraan iyo module-ka hadda aan ka hadlaynay okay kalsoonida hadduu numberkoosu meesha ku dhaw wuxuu ku jiraa 2 sentimitir wuxuu ku jiraa 5 sentimitir wuxuu ku jiraa 4 sentimitir si loo aamino waxa waaye waxaad u baahan tahay kuwa badan moduleyaal badan inaad isticmaashid oo aad marar badan cabirtid si marka ugu dambaysa aad dhahdid okay kulligood markaan fiirino isku si may wax u cabirayaan hadda ka soo qaad meeshan kan orange-ga graph-kan orange-ga hadaan fiirino waxa waaye sidii laga rabay waxa waaye waa distance-ka laga rabay kan blue-gana waxa waaye markaan isticmaalayno annaka module-kan si aan ugu cabirno distance-ka marka hadda dhaqso waxaan ka arki karnaa hadhowaan dib u arki doonaa sida waxaan aan u sameeyay laakiinse 2 sentimitir wixii ka hooseeya macnaheedu waxa waaye module-kan la isku aamini karo oo numberka waxa uu xisaabinayo mase distance-ka uu kuu soo sheegayo ma aha wax sax ah wixii ka sareeya waxa la dhihi karaa waa isku aamini karaa inta aad ka aragtiin 1 sentimitir markaan damacnay inaan cabirno wuxuu sheegayaa waxa waa 5 sentimitir laakiin wixii ka dambeeya waxay u tahay inuu si fiican u cabirayo oo la isku aamini karo marka taasi ahayd intana waxaan rabaa inaan idin tusiyo markii oo aan ku dhajinayno Arduino-ga module-kan aan u isticmaalayno inuu noo cabiro shaygu intuu noo jiro asagii waxaan isticmaalay waxaan la dhahayo pinhera waxa waa meel uu soo galayo marka lugta echo la dhahayo waxaan ku dhajinay 10 lugta trigger la dhahayana waxaan ku dhajinay 9 dhankan kale tan waxa waaye OLED display-gi asaguna meeshii uu gali lahaa kaliyahan sawirtay OLED display lugta la dhahayo clock mase SCL waxaan ku dhajiyay pinkan la dhahayo 5 SDA-na waxaan ku dhajiyay lugtan la dhahayo 4 Arduino-ga haddii aan rabno inaan sameeyno waxaan la dhahayo I2C amse I2C waxa la dhahayo haddaan rabno inaan isticmaalno waxa waaye labadan lugood bas ayaa la isticmaali karaa lugo kale ma la isticmaali karo marka hadda waxaan sameynaynaa waxa waaye waxaan isticmaalayaa logic analyzer-ka oo aan rabaa inaan ku fiiriyo trigger signal-ka markaan ka soo diro Arduino-ga burst-igu seeba u egyahay kadibna kana soo galaya seeba u egyahay software-kii logic 2 la dhahayaan isticmaalayaa channel-ka ugu horeeya wuxuu tusinayaa trigger kan ku xiga burst kan ku sii xiga echo marka haddii aan dhaho below marka kan ugu horeeya muxuu ahaa 10 microsecond waa inuu ahaadaa high triggerhan marka triggerkan 10.5 waaye dib ma lahantaas markaan hadda fiirina marka burst-igu seeba u ekaa wuxuu ahaa 8 pulse oo frequency-giisu yahay 40 kilohertz ahaa marka hadda markaan inta fiirino waxaa ku qoran inuu frequency-gu yahay 38.46 kilohertz maxaa kaleeto arki karnaa waxa waaye burst-iga haddaan tirino 8 xaba inuu ahaadee ahayd pulsation 1 2 3 4 5 6 7 8 maxaa kaloo ku xiga waxaa ku xiga echo-gii kii soo noqonayay marka kan soo noqonayay waxaa ku qoran meeshan waqtigan oo aan u isticmaalayno inaan ku cabirano fogaanshaha meesha cabirayno noo jirto waxaa ku qoran inuu yahay 606 microsecond marka waxaan dhahnaa waxay ahayd pulse-kan balaciisu wuu sii weynaanayaa markaan sikino bal mar kale taan sameynaya hadda waxaan ka dhigayaa 20 ayaan geynayaa hadda marka 20 aan u dhaweeyay laakiin 20 juusta maahan marka hadda haddii aan fiirino sidoo kaleeto kani wuxuu ahaa trigger kan ku xiga wuxuu ahaa burst-igu ahaa kan kale ku sii xiga waxa waa waqtigii hadda waxaa ku qoran marka inuu yahay 1.485 milliseconds inuu yahay pulse-kan ayaa mar walba wuxuu noo sheegayaa shaygan cabirayno intuu noo jiro code-ka Arduino-ga ayaa inii sharaxaya haddana marka waxaan isticmaalaynaa waxa waaye OLED display-ga variable-kan wuxuu noo sheegayaa inta pixel balaca
OLED displayga uu yahay. Kan ku xigana waxa waaye dhirirka OLED displayga. Marka waxa kale variable kan kaletana wax weyn ma laakiin waxa ku qoran meeshan inuu resetkiisu uu la soconayo Arduino resetkiisa. OLED displaygu wuxuu isticmaalayaa I2C communication waxa la isticmaalayaa si uu ula hadlo Arduino-ga. Marka addresskiisu waa kana. Maxaa kale meeshan kore waxa ku qoran library-shan isticmaalayno. kan koobaad waxa waaye Arduino kii ahaa. kan la dhahayo wire isticmaalayna waxa waaye waxa la dhahayo I2C communication-ka library-gan ayaa loo isticmaalaa. labadan library aan u baahannahay si aan u isticmaalno OLED displayga. marka waxaan sameynayaa waxaan ka bilaabaa waxa waaye Adafruit-ku wuxuu leeyahay object la dhahayo SSD 13.6 kadib anaga magac u baxsanaya. wuxuu kaleeto u qaadanaya ama argument-yaashiisu waxa waaye ballaca screen-ka dhirirka iyo communication kan isticmaalayno kaasoo wire dhahnay laakiinse haddana inii sheego ah I2C-ga. maxaa kale kana waxa waaye kan reset-ka. kadib waxaan sheegayaa lugta trigger uu ku dhagan yahay lugta 9aad waaye Arduino-ga. echo-ga codka soo noqonayo lugta uu ku dhagan yahay waxa lugta 10aad waxa waaye average size dib aynu kaga sharaxi doonaa laakiinse waxa waaye inta number oo isku daraysid si aad u xisaabisid isku celceliska. kaasoo qaad waxaad cabirtay 5 jeer ayaad cabirtay 5tii jeer oo cabirta isku daraysaa waxaad u qaybinaysaa numberkan meesha ku qoran. numberkan ka dhigan karnaa waxaan samaystay 3 function. midka koobaad oo ah print on OLED macnaheedu waxa waaye OLED-ka ku soo qor aniga displayga uga arko. kan kale waxa waaye measure distance cabir dhirirka mise fogaanta wuxuu noo jiraan. kan kaleetana waxa waaye dataha ayaan filtration ku samaynayaa. laba variable aan samaystay. midka koobaad oo ah distance wuxuu sheegayaa fogaanta mise dhirirka mise inta wuxuu ii jiraan aan cabirayo. kan kaloo ku xiga waxa waaye duration time waqtigii waxa waaye pulse-kan ballaciisa. marka waxa Arduino wuxuu tirina waxa waaye number wuxuu tirina 1 2 3 4 5 saas u wadaya. marka sidaas darteed numberkan waxa waaye float inuu ahaado maaha long waaye. maxaa kale setup-kii waxaan sameynayaa serial-ka ayaan bilaabayaa. serial-kan waxaan u isticmaalayaa markii aan waxyaalahan aan sameynayo si aan uga arko oo ii caawiyo laakiin hadda wax ma ku isticmaalin. kadibna markaan waxyaalaha oo aan rabo data badan inaan soo aan cabiro ayaan u isticmaalayaa. marka displaygaan bilaabaya meeshan laba waxaan leeyahay displayga waxa ku qoran tirtir. midka kale ku xigta waxaan labadii lugood ayaan sheegayaa waxay yihiin. lugta la dhahayo trigger pin waxa waaye output waaye. lugta la dhahayo echo asaguna waxa waaye input waaye. macnaheedu waxa waaye kan trigger pinka la dhahayo waa mid Arduino ka baxaya waa midkan sameynaya pulse-kan sameynaya oo ah 11 microsecond ama 10 oo hadee ahayd laakiin 11 wax ma isdhamaan. maxaa kaleeto echo pinkana waxa waaye waa codkii nagu soo noqday. macnaheedu waxa waaye module-kan mise sensor-ka ku dhacaya kadib ayaa waxaan ka akhrisanaynaa anaga Arduino-ga wuxuu yahay. marka sidaas darteed waxa waaye input waaye wax banaanka naga soo galaya. loop-ka haddaan tagno waxaan sameynaa waxa waaye distance-kii iyo cabir. distance-ka soo igu cabirana waxaan sameynaa variable-kii ayaa waxaan leeyahay function-kan wuxuu ii soo celinayo waaye. marka function-kan haddaan fiirino kan waaye waxa koobaad aan ka bilaabaa waxa waaye si aan 10 microsecond-kaas aan u sameeyo oo waxaan lahayaa trigger-ka u sameeyo. waxaan leeyahay pin-kan trigger lahayo wuxuu ka bilaabanaya low state macnaheedu waxa waaye waa inuu san ever uu ahaada. kadib waxaan sameynaa waxaan leeyahay waxaad sugtaa 2 microsecond. kadib waxaan leeyahay trigger pin-kan waxaad ka dhigtaa high waxaana high ka sii dhigtaa 8 microsecond. kadibna waxaa ka dhigtaa low. waxaa laga yaabaa inaad isla markaas isweydiisiin maxaa dhaco 8 kaliya uga dhigaysaa meesha soo maahan 10 oo ahaado. sax waaye laakiinse Arduino-ga markuu uu pin daarayo mise uu diminayo waqti bay qaadanaysaa. marka haddaan 10 meeshan ka dhigo waxaa laga yaabaa ballacan inuu noqdo wax 10 ka badan 13 iyo 14 ama noqonaya. marka si aan ugu soo dhaweeyo waxa ku qoran data sheet-ka ana ayaan hoos u dhigay. waxaana ogaaday 8 inuu siinayo numberka 10 ilaa 11 microsecond. kadib waxaan sameynaa waxaan dhahayaa waxaad samaysaa aan leeyahay waxaad ilaalisaa ilaa ay high ka ahaanayso. intii high ay tahay lugtan ilaali. marka wuxuu sameynaa waxa waaye isla markaas lugtaasi uu high noqdo wuxuu bilaabayaa waqtiga inuu xisaabsho. markii oo lugtaas low noqotona isla markaas wuxuu noo soo celinaa intii waqti qaadatay. marka waqtigii noo soo noqday ayaa waxaan leeyahay waxaad samaysaa dib iigu soo celi duration time-kan markii aad ku dhifano xawliga codka kaasoo loo qaybiyo 2. sababtan 2 ugu qaybinayna waxay ahayd codku wuxuu ka dhaqaaqayaa sensorka wuxuu meelo ku dhacayaa kabacdina wuu soo noqonayaa. marka waxaan cabiraynaa waxa waaye 2 jeer ayaan cabiraynaa sii socod iyo soo socod. codku intuu sii socdo iyo intuu soo socdo. marka sidaas darteed 2 aan u qaybinaynaa. numberkanna taan u noqdo uusan u noqon 342 waxa waaye 100 aan u qaybiyey si uu iigu soo celiyo centimeter. marka dib haddaan ugu soo noqono meeshani shaygan cabiran intuu noo jiray ayaan noo soo hadda haysanaa. kadib waxaan dhahayaa waxaad samaysaa numberkan
oo aan haysto waxaad samaysaa waxaad u dirtaa functionkan la hayo print on OLED macnaheedu waxa waaye OLEDka kusoo qor functionkan OLED kusoo qorna haddii aan tagno waa kana markaan functionka tagno macnaheedu waxa kooda ka bilaabo waxa waaye meesha waxa ku qoran oo tirtiraya marka koowaad wuxuu leeyahay waxaad samaysaa textaha weynankiisa waxaa ka dhigtaa 2 textaha weynankiisana waxa waaye 1 2 waxyaalahaasna ka dhigi kartaa marka laakiin waxa loo baahan yahay data sheetka in la fiiriyo library-gan dadka sameeyay data sheetka sameeyeen si loo fahmo nambarada wax laga wado laakiinse nambarka 2 la dhahayo texta xogaa waa weyn yahay waa la akhrin karaa kan kale ku xigta waxaan dhahayaa colorka waxyaalaha soo baxaya waa inay noqdaan cadaan maxaa kale ku xiga cursorkana macnaheedu waxa waaye meesha uu ka bilaabayo texta qoraalka texta meesha ka bilaabayo waxa waaye inay noqoto 20 pixel macnaheedu waxa eber haduu taagan yahay 20 pixel hore socona ka bacdu soo qoraya waxa uu soo qorayana waxa waaye distance maxaa kale kadib aan waxaan leeyahay haddana waxaad samaysaa texta kaleeto oo size-kiisu uu yahay ama weynankiisu uu yahay 3 iyo qor macnaheedu waxa uu ka weyn yahay kaas sidoo kale cadaan ka dhig waxaan leeyahay waxa ka bilowda eber waxaana samaysaa meesha uu ka bilaabayo macnaheedu waxa waaye y axis-ka waxaad samaysaa waxaad ka soo bilowda hoos uga dago kii hore oo eber ka bilaabanayay hoos uga dago oo 34 pixel ka bilow macnaheedu waxa labada text iskuma dul qormayaan variable kale kor ku samaysan lahay distance kiyaan rabin mar kale inaan isticmaalo wax yaraan magaci bedelay marka waxaan dhahay hadduu 100 ka hooseeyo waxaad soo qortaa distance-ka ama iigu dir OLED-ka waxaana ku xijisaa waxaan ku qorantaa cm centimeter haddii kale uu ka weyn yahay 100na waxaad samaysaa numberkaas 100 u qaybi kadibna waxa ka dimaysaa meter macnaheedu waxa centimeter-ka iyo meter-kii uu kala soo qoraya sababtuna waxa waaye haddii kale wuxuu soo qori lahaa 100 centimeter 200 300 centimeter kaasna ma rabi waxaan rabaa inuu soo qoro centimeter ilaa laga gaarayo meterka ka bacdina uu qabo soo qoro 1 meter 2 meter 3 meter marka dib haddaan ugu noqono meeshii hadda OLED-kii noogu soo qoray waxa kale oo ku xiga waxa waaye waxaan dhahaynaa serialka isagana noogu soo qor tirada markuu serialka noogu soo qor kadib waxaan leeyahay waxaad sugtaa 100 millisecond sug code-kii intaas uu ahaa okay marka waxaan sameynaa waxa waaye hadda waa ku shubanaya waxaan kaloo dhahayaa marka serialka itusi waxa uu soo qorayo hadda distance-ka cabirayo waxa waaye 20 centimeter waaye taasoo 20 igu soo qoraya marka kani kaasoo ahaa marka hadda waxaan sameeyay waxa waaye waxaan cabiray 1 centimeter mastarada ayaan qaatay 1 centimeter ayaan u jirsiiyay module-kan u jirsiiyay 1 centimeter kabacdina waxaan tagay 2 centimeter 3 4 5 7 10 15 ilaa iyo 30 marka waxaan sameeyay waxa waaye 300 jeer ayuu kiiba cabiray markuu intaas cabiray kadib ayaa waxaan sameeyay mid kasta sidii aan ku sameeyay waxaan u sameynaa waxaan waxa waaye waxaan rabaa inaan hubsado in la isku aamini karo qalabkan ultrasound-ka isticmaalaya xadkiisu xagee waaye ma see la isugu aamini karaa marka waxaan sameeyay waxa waaye waan cabiray marka summary aan intuu sameeyay nambarada tirada badan leh ayaan inta aan soo gaabsaday waxaan isku celisku markii 1 centimeter la cabirayo isku celiska nambaradan waxa waaye wuxuu yiri waa 5.68 waa number qaldan laakiin isku celisku halkaas uu noqday qaladka jira waxa waaye aan dhahay isku celiska numberku uu yahay markii laga jaro numberkii laga rabay waxa waaye qaladka jira wuxuu yiri qaladku sameeyay waxa waaye waxa saayid ku ah 4.68 sidoo kale labada centimeter waa sameeyay isagana wuxuu yiri qaladka jira waxa waaye eber 18 saddexdii sidoo kale sameeyay 4 5 kullidaasaan sameeyay haddii aan sameeyo plot kan oo ujeedin oo reference-ka u baxshay oo kan ah colorkan orange-ga ah waxaan soo dhaweynaya colorkan orange-ga ah waxa waaye wixii laga rabay kaasna si aan u cabiro waxaan sameeyay waxa waaye baradan ayaa waxaan sameeyay x axis-kina asagan ka dhigay y axis-kina asagan ka dhigay macnaheedu waxa waaye haddii 1 centimeter aan rabo waa inuu 1 centimeter noqdaa haddaan 2 cabirayo waa inuu 2 noqdaa waxa waaye wax kasta waxa waaye sida laga rabay waa inuu ahaado kadib waxaan sameeyay kan blue-ga ayaa waxaan soo qaatay nambaradan average ku qoran tahay kuwaas ayaan isla meesha ku sawiray waxaad u jeedin waxa waaye kan blue-ga oo noo sheegaya module-kan siduu uu wax u cabirayo kan blue-ga iyo kan orange-ga si isku yihiin labadooda marka waxaan u jeednaa waxa waaye module-kan 2 centimeter wixii ka yar cabirkiisu ma la isku aamini karo macnaheedu waxa waaye wax qalad oo cabiraya sababta keenaysa taas waxa waaye module-ku markuu u soo dhawaado meesha uu cabirayo maadaama PCB-ga module-ku uu ku dhagan yahay ayaa codkii wuxuu sameeyaa wuxuu ku dhacayaa meeshii aad cabirayso ku dhacaya kadibna asaga ku dhacaya maanta dhan codad badan ayaa hori gadaal u soconaya marka qaladkaas uu noqon karaa iyo kuwa kale 2 centimeter iyo wixii ka sareeya cabirku aad iyo aad isugu dhow yahay qaar kana meesha qaladka jirana millimeter waaye laakiinse midda kale oo jirtaana waxa waaye maadaama anigu aan
isticmaalayo mastarad oo anigu aan sikinayo bahalka waxa laga yaabaa anigu xataa qalad inaan samaynayo mase boqolkiiba boqol aan la hubin aniga xataa saan u sikinayo marka qaladna halkaas uu ka imaan karaa okay marka qaladka haddaan fiirino qaladku aad ayuu u badan yahay shayga la cabirayo markuu aad noogu dhow yahay qaladku aad u badan yahay kadibna waxa waaye waa jira qalad laakiinse qalad saas u badan maahan oo macnaheedu waxa waaye cabirka waa la isku aamini karaa marka tanina waxay ahayd wax yar oo aan isticmaalnay data aan isticmaalnay si aan qalabkan dhahno ma la isku aamini karaa mase ma la isku aamini karo midda kale oo fiicnaan lahayd si oo kaba soo qaad daytaan hadda intaa idin tusiyey si loo dhaho daytaan boqolkiiba boqol waa la aamini karaa waxa loo baahan yahay waxa waaye moodwalyaal badan inaan cabirno macnaheedu waxa laga yaabaa kan aan haysto waxaa laga yaabaa inay asaga wax ka qaldan yihiin waxaa laga yaabaa kuwa badan inuu ka fiican yahay waxaa laga yaabaa saan aan markaan aniga gacanteeda ugu sikiyey inay ka geydisan tahay siyaabo kaleeto marka haddii data badan haysatid waxa aad sheegi kartahay waxa waaye wax la isku hubo mase la isku aamini karo waxa waaye sawirka saxda wuxuu soo baxayaa markaad haysatid information badan videogii intuu ku dhammaaday waxaa idin rajaynayaa inaad wax ka faa'iideen videogan haddii aad wax ka baratay like taabo channelkana subscribe dheh si aad ula socotid markaan wax cusub soo geliyo waxaa idin rajaynayaa maalin wanaagsan salaamu calaykum